doorashada maanta waddankeena waxa duldhigay waxaa ku dadaalay madaxweynaheena deni codkii u daafuraa loo dareerayaa. shirkan ballaaran ay isugu yimaadeen mid ka mid ah beelaha Puntland ayaa ujeedkiisu ahaa taageeridda isdiiwaangelinta doorashada qof iyo codka ah ee golayaasha deegaanka Puntland ee xilligan socota. waxaana shirka ka soo qayb galay Garad Cabdullaahi Garaad Tamaam oo ka mid ah ismada dhaqanka Puntland, dhalinyaro waxgarad aqoon-yahano iyo haween. ugu horeyn Garaad Cabdullaahi Garaad Tamaam oo ka mid ah ismada dhaqanka ee ugu facaweyn Puntland oo shirka ka hadlay ayaa u rajeeyay shacabka Puntland ee xilligan ku guda jira isdiiwaangelinta codbixiyaasha doorashada qof iyo codka ah ee Puntland. waxaan u tahniyeynayaa tahniyad wanaagsan, waxaan u wanaajinayaa oo u diyaarsanahay inay nolol iyo barwaaqo iyo caafimaad ku noolaadaan, in maamulka ilaahay loo wanaajo idinkana dhalinyaro shirku waa guul. dhankooda qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaasha shirka oo iskugu jiray waxgarad aqoon-yahano, dhalinyaro iyo haween oo shirka ka hadlay ayaa dhammaantood soo dhaweeyay isdiiwaangelinta socota, waxaana ay sheegeen inay diyaar u yihiin isdiiwaangelinta doorashooyinka qof iyo codka ah ee golayaasha deegaanka Puntland. dhanka kalena waxa ay tacsi u direen bulshada magaalada Laascaanood. kabeel ahaan waxaan halkan ku cadeynaynaa in aanu taageersanahay diiwaangelinta haddaan nahay beesha guul hartigeesa guule oo degta gobolada Bari iyo Gaardafuu. isdiiwaangelintii waa wadnaa, dadka beesha u dhashay isdiiwaangelintii way ka qayb qaadanayaan inta Boosaaso joogta. gobolka Gaardafuuna markay ka bilaabato kadaalig saas oo kale insha Allah golayaasha deegaanka oo hore ugu jirnay oo deegaanadaasna waa u tartami doonaa oo maxay ahaayeen ururada kala duwan. ururadana waa ka tartami doonaa insha Allah kabeel ahaan. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan soo dhaweynaynaa oo aan waliba uga mahadcelinaynaa madaxweynaheena Siciid Cabdulaahi Deni in uu Puntland maanta uu horseeday qof iyo cod inay gaarto. dhammaan beeshu meel kasta ay joogto, haddii dal joogto iyo haddii dibad joogtoba, doorashada golaha deegaanka iyo isdiiwaangelinta hadda bilaabatay intaba way soo dhaweynayaan. hadda dadkan waxa way waa dadkii joogay degmada Boosaaso. waxaan ku leenahay golaha deegaanka xubin golaha deegaanka ah. insha Allah waxaan ka rajeynaynaa xubintii iyo ka badan ba inaan ka helo. ujeedkan meeshan isugu nimi waa taageeridda isdiiwaangelinta qof iyo cod oo ay ku taageerayso beesha guul harti ama geeso guule, taas oo ah fursad ku qaali ah Puntland oo dhan una horseedaysa in loo tartamo si siman. waxaan codkeena ku ilbaxnaa nin walba wax weeye xor weeye doorasho qof iyo cad waa in la galaa. saasan ilaahay noo rajaynaya in ku waanaya waxaan halkan ka uga tacsiinay walaalaheena reer Laascaano. waxaan leenahay ilaahay idin bogadhayo, ilaahay intii dhimatan ha u naxariisto, inta joogtana caafimaad iyo xor laha siiyo, cadowgana Allah ka dulqaado. beeshu waxay diyaar u tahay meel walba ay degan tahay. waa beel weyn oo ballaaran oo degan gobolada Bari iyo Gaardafuu. beeshu waxay diyaar u tahay inay isdiiwaan geliso, waxayna si hagar la'aan uga qayb qaadan doontaa inay codkooda dhiibtaan oo suulkooda ay ku cilbaxaan. beeshu waxay ajiibtay oo aqbashay aadna u soo dhaweynaysaa barnaamijkan oo ay aaminsan tahay inuu horseed u noqon doono horumarkeeda iyo inuu u horseedi doono inay hesho matalaadii ka maqnayd ama matalaad xumadii ka haysatay golayaasha deegaanka, golayaasha dawladda Puntland, haddii tahay golaha baarlamaanka, golaha wasiirada iyo golayaasha deegaanka ee degmooyinka ay degan tahay beesha. waxaan leeyahay madaxweyne waan ku jeednaa barnaamijkan waa ka dhab sidoo u dhaqaaqay ayaan u soo dhaweynaynaa oo beeshu ay diyaar ugu tahay. waa bogaadinaynaa dadkana waxaanu ku dhiirigelinaynaa nidaamka hadda socda oo ah dhiirigelinta mustaqbalka, xorriyadda oo qof iyo cod ah inay taageeraan haddii Ilaahay idmo. in codka beesha guul harti uu mid yahay, ay soo dhaweynayso, ay taageerayso golaha deegaanka ee doorashooyin golaha deegaanka hal qof iyo hal cod ee loo madlan yahay inay dhacdo. haddana diiwaangelintiisu ay ka socoto magaalada Boosaaso. haddaan nahay beesha guul hartina diyaar ba u nahay doorashada qof iyo cod in aanu ka qayb qaadano, xuduudeedana aan muujino. maanta hal ku dhig waxa weeye gasguul la socay oo geediga raac
waxa weeye waqtigeeda waa la joogaa waxaan leeyahay hal isdiiwaan geliyo qof kasta waxa weeye xaqiisu waa codkiisu waa xaqiisa qof kasta codkiisu waa xaqiisa saasay noo badan isdiiwaan gelin baa noo badan dadku waa la guuray geedi baa lagu jiraa waxaan u malaynayaa haddaynu halkan saas u nimay gobolladeena aynu ka soo jeednay inoo dhiman yihiin inaynu dadka ugu fiican nahayno in waxa weeye doorashada loo dareero la isdiiwaan geliyo codkeenna inaynu ku ciilbaxno baynu rajaynaynaa biidnillaahi kariim insha allah waana soo dhawaynaynaa qof iyo cod dhammaanteen waa inaan isdiiwaan gelinaa waa inaan wada shaqaynaa waa inaan xildhibaanadeenna inagu soo saarannaa suulkeenna waa inaan ku ciilbaxnaa waxaan aad iyo aad u soo dhawaynaynaa doorashada isdiiwaangelinta sida habsamida looga socota deegaanada Puntland dhalinyarada beeshu waxa ay bogaadinaysaa dhiirigelinaysaa kuna faraxsan tahay habsami u socodka isdiiwaangelinta iyadoo bogaadinaysa inay si guul ah oo taariikhi ah ay ku soo dhamaato doorashooyinka qof iyo cod ee loo madlan yahay waxaan guud ahaan dhalinyarada iyo aqoonyahanka beeshu dhiirigelinaysaa habsami u socodka isdiiwaangelinta doorashada waxa ayna si gaar ah u dhiirigelinaysaa guddiga TPEC oo ah guddiga loo idmaday inay hawshan qabsoonto cabdirasaaq cabdulla faamus raadi ay telefishinka dowladda Puntland magaalada Boosaaso